lagu istijoon karaa kalnagis haddii la waayo wixii kale ee lagu istijoon lahaa haddii la waayo oo uu qofku meelaha qaarna uu waayo wuxuu ku istijoodo ama biyo ama wixii adkaa ee galaya istijmar la odhanayay kalnagis keliya haatee ama salfeed waxaana nidhaahno ee cadcad ma darabyeel ma gali karaa mise ma gali karo بسم الله الرحمن الرحيم أرتي دينتنا إله بإنه فديديي waxaan nijaasta inaynu iska maydhno aynu iska nadiifino shareecada wayna fartay waa taasna dadkeenu ay ilaaliyaan laakiin waxaan leenahay biyana waa lagu nadiifiyaa waana waxa sii mudan haddii la helayo wixii kale intuu daahir yahay adag yahay wixiina baabiinaya wixiina meeshii kaba baabiinayana taasna waa lagu istinjoodaa arrintuna maaha weliba wuxuu isagoo biyo helaya uma banaana inuu wax kale isticmaalo isagoo biyo helaya hadduu tan ku kaaftoomo way u banaanta way u noqonaysaa salaadina way kaba gudaysaa hadda waa isagoo biyo helaya macnaa labadooda unbaa hadday ku gudboonaadaan waxa mudan biyihii oo meeshii oo dhan bay wixii ay tirtirayaan laakiin xataa isagoo biyo helaya oo magaalo iskaba jooga hadduu wax daahira wixii uu iskaga biiyo way u noqonaysaa dee umuur dawaabid sharciya jira oo ruuxu markaa waxa iska binay horta wuxuu daahira waa inuu yahay wax jaamidon qoyanayn waa inuu si aanu nijaasti u banayn waxaan suulinaya oo goynaya waa inuu yahay oo meeshii goynaya waa inuu yahay marka la marinayana 3 goor cala alaqal waa in la mariyo haddii 3 goor meesha ay ku wixii ay kaga baaba'aan waa lagu kaaftoomi haddii kalena waa la kordhin waxaana fiican in dee witri tiro dhiman lagaba dhigo waman istamara faqad falyutir baa rasuulka ilaahay yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaa kalinigaskana ma waxyaalaha waraaqahan dee kaniifyada laba dhigo waa shay nadiifa waana shaygaa engegan wixiina way goynayaan haa way noqonayaan oo way u noqonayaan ruuxi taa way u noqonayaan haddii uu biyo haysto dee biyaha mudan labadooda hadduu israacinayana waabay fiican tahay laakiin haddii iyadoo biyo la helayo tan xataa uu kuma kaaftoomo shay bannaan weeye way u noqonaysaa wallahu almuwafiq laakiin muhimkun ha laba ilaaliya 3 goor inay noqoto meeshii ugu yaraan weeye haddii 3 goor islaa wixii may bi'in waa la kordhinayaa marka intay ku go'do waxa fiican markaa in tiro dhiman un lagaba dhigo laakiin 3 goor xataa hadday mar keliya kaga ba'do 3 goor waa laga maarmaan bal taas way allahuma waxa iska jirta oo rasuulka ilaahay idin amray wax cuntooyin wax la cunayo inaga oo dad madcuumkoodii la iskaga baabiinayo lafahan aynu hilibka kaba cunayna jibbay saad u tahay iyadna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey dee waxaan la iskaga biyo wax sidiisa nijaasba u ah la iskama biinayo wax dee aan goynayn oo sida quraarad oo kale oo dhici karta wixii inay aanay sibsibi oo markaa aan hagaaga wixii u masaxayna dee la iskama biinayo laakiin wixii daahir ah nadiif tahay engegnaa taasi ay kaba mid tahay oo wax lagu istijoon karo